anu waqtigii hooyada baa dhihi jirtay wadankaaga wax ku dhaama jiro wadan hebel waa dareen ku joog maxay been baan u haystay laakiin waan soo arkay waxa igu kallifay tahriibka wuxuu ahaa inaan mataqaantaa nolosha aan markaa xaaladda aan ku sugnaayo nolosha aan ku sugnaa to ka wacan oo ka wanaagsan inaan u doonto wadannada shisheeye ee qurbaha inaan u doonto waddanka waxaa lagu soo celiyay 2024 bishii tobnaad waa kan maanta waan ku noolahay meel lana intaan soo noqday Hargeysa go'aan bixin maalgelinta la siiyay lacag yar oo mataqaantaa kooban bay ahayd oo markaa inaan wax ku qabsanay ahayd alxamdulillah lacagtii waan ka faa'iideystay halkii aan arkaysay ee dawaar ku yaalay ayaan alaabta ku soo saaraa halkan waan soo suuq geeyaa ganacsigan waxay igu dhiirigeliyay inaan bilaadan u baahanin caqabado fara badan ayaa iga soo qabsaday laga yaabo maalmaha qaar kood intaan wixii shayga aan wada aan iibin kari waayo inaan iska moraal jabo deewaan dadaalay oo aan gaaray kaliya kuma koobnaba dee wax soo saarkayga waayo inanka ii shaqeeya iyo xaafadayda iyo lafahayga iyo mataqaantaa baahiyayga waan ku filayeen